maana been sheegaya wataas saamaalkaysa ma sawdhilada ma khaniisada waxaan arkay video kalaabiyad dunida la wareejinayo oo dad imka media ku soo biiray in xanuunsanaysa in bugta in aan la garanayn oo qurbaha ku waashay inay magacayga sawirkayga wareejinayaan amaalkaysa ay ma is aragto wax suuq ku yaal ma ogtahay ninka timaha cirada ku leh ninka xoogaaga leh yaa wuxuu ka duubay ma ogtahay meeshuu ku dhigay ma ogtahay kursiga markaad fadhideen oo sanka ka nuugay xataa naqas kugu dhajiyay ma aragta safiya tusmaad la yaabadeen iskaala suuq loogu soo wada daadanaya maantana waxaa baraha bulshada la wareejinayaa muuqaalo anshax xun kuwaasoo laga faafinayo amaalkiisa oo ahaan jirtay wariye ka tirsan TV-ga Somali Cable iyada oo muuqaaladani ee daba socdaan kuwii Safiya Tusma laga faafiyay maadaama arrintu isku bedeshay mid qabiileysan waxa ayna salka ku haysaa arrintii Safiya Tusma oo isku bedeshay in la isku dagaalo qaab qabiileysan oo qof kasta muuqaal laga keeno haddaba barnaamijkan ayaa waxa ku daawan doontaa muuqaalo badan oo kala duwan kuwaasoo ku saabsan sababta ka dambeysa in muuqaaladan anshaxumada ah laga faafiyo wariyahan amaalkiisa sidoo kale iyada lafteeda oo ka hadlaysa arrintan laga faafinayo iyo muuqaaladan waxa ay yihiin daba saaxiibayaal intaanan u gudagelin barnaamijkan oo faahfaahsan oo dhameystiran waxaan idinku codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan sidoo kale haddaad ku cusubtahay channelkeena aad subscribe saartaan gomboleelkana furataan si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada aan halkan soo gelino noqod wanaagsan saaxiibayaal sidaan hore idinkula soo wadaagnaba waxaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa wariyaha amaalkiisa oo ka hadashay arrin aad u yaab badan taasoo ah muuqaalo aad u anshax xun oo laga faafiyey muuqaaladaas waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qaybta dambe ee muuqaalkan balse inta aanan gelin maxay tahay muuqaaladan la faafinayo yaase ka dambeeya in gabadhan wariyaha ah ceebteeda la fagfago maxayse salka ku haysaa sidaan wada ogsoonnahay 2 isbuuc ka hor ama bil ka horba waxaa baraha bulshada si aad loo hadalhayay fanaanada Safiya Tusma oo sidoo kaleeta iyadoo laga soo faafiyay muuqaalo anshaxumo ah taasoo isku bedeshay markii dambe arrin qabiileysan maadaama ninkii lagu eedeeyay inuu muuqaaladaas faafiyay uu baraha bulshada soo fariistay uuna sheegay in waxaasi ay yihiin wax been ah uuna sheegay inuu asagu muuqaaladaas faafin ee tahay mid labadooda laga wada faafiyay daba arrinka ayaa waxa uu isku bedelay mid qabiileysan ayna arrinku noqday dadkii ka hadlayay ee ugu firfircoonaa arrinta Safiya Tusma in ayaga lagu soo rogo oo ayagiina muuqaalo anshaxumo ah laga keeno daba inta aanan muuqaalada kaleeta iyo barnaamijkan waxa aan ka helno idinla wadaagin waxaad nala daawataan qabiilada dadka la qaawiyay iyo sida ay kala yihiin inta ugu jira waryaa saab ya qabi in adeerkay ninka qaawiyay waa garxajis ayana waa garxajis habar yoonis baa qaawiyay eedana waa ciida gale hay'ad ismanaya qaawiyay ciida gala qaawiyay maanta ninkii ciida gala waatan in adeertiisa qaawin waxa soo dhan qabiil hadaan leenahay ya inta kaliya ku ogaada qabiil la yiraahdo ma jiraan meeshaan kaliya hadalkeedu kuma ekeen oo waxa ay ka mid tahay dadka doonaya in gabadhan wariyaha ah muuqaaladeeda meelaha la faafiyo waxa ayna sheegaysaa qof allaale qofkii soo weydiiya inay WhatsApp-ka ugu soo diri doonto naagaha soo joogta laga waayo soo jiiftaa la idin keenin WhatsApp-ku yaacaya wallahi billahi tallahi qofkii soo weydiiyo oo ku soo diraya saamba waa la ii soo diray ya wallahi oo billahi oo tallahi qofkii WhatsApp-kiga wada taqaan kulliga samaha 480 ah tii soo weydiista oo kugu soo diraya adaa arki doontid indhahaaga waa tuma ku noqo wala hoogayo baay timu ilaa waxay timaha la wada dabooshaan timu waa wada jareer sidoo kale waxa uu carabkeeda soo qabtay wariye hore oo ka tirsanaan jiray BBC Amina Muuse inay sugayso iyadana in muuqaalo qaawan laga soo faafiyo arhana abu karo qaawan hala keeno hore loo soo qaawiyay cadaan bay aadi ha la keeni maayo laakiin Amina Muuse weheliye iyo ay sugayaa صيع والله هذا مقد وح كعنتين نمان كان ساعدها أبل كاقبة ساعد بالسحرنا يا أبله بس الإسكينية نا غيهو نا وحين ما قرتان ila tahay inaad muuqaaladaas kooban aad soo daawatay gabadhan amaalkiisa muuqaalada qaawinida ah dadka ka faafinaya ayay ka mid tahay maamadan sidoo kale mid kaleeto ayadana la dhaho Qadra taasoo ahayd midii ugu horeysay ee muuqaaladan faafisa arrintana u rogta arrin qabiileysan waatana gabadha amaalkiisa oo ka hadlaysa arrinta waxaan arkay video kalaabiyad dunida la wareejinayo oo dad imka media ku soo biiray in xanuunsanaysa in bugta in aan la garanayn oo qurbaha ku waashay inay magacayga sawirkayga wareejinayaan amaalkiisa laakiin waxay la tahay waxba
waxba aniga ilama ahaba ina yaro xanuunsanaysa iyo gabadh waalatay iyo oday dawaqsani waxaasi wax loo joojinaya wax iga qaad horumar waxaan ka sii qaadayaa karti fara badan iyo dadaal fara badan imika inta media soo fadhiisatay ee qaylinaysa cajiradii beenta ka sheegaysay cajiradii jarjartay waxaas anu waanu dhabar adeeg weligii baan jiray ina yaro sakhraana ina yaro dawaqsan daayo dhan shaydaan meel uu ka yimid garaneen hadal wax ma taro maskana sunta iyo qaniyada sunta maska loo dhinta laakiin qaniyada waxba qaadimayso ka beenta sheega ee aqligooda la kaashanay inta yara xiiqsanay media inta fadhisan hadal la boodaya ee shaqo tagi waaye ee danahoodii garan waaye ee wax baran waaye ee caalamka dadka nadiiftaas leh wasakheeya waruuxan waa dhalasho kale waa kana muuqaal ay uga hadlayso dadka danaystayaasha ah ee doonaya inay muuqaaladeeda ka faafiyaan weliga waxaad iska eegtaa qof danaysta qofka danaysta waxa lagu gartaa dadka inuu dhex galo ma jecla wuxuu jecel yahay haddii la shaqa la wada galaya inuu keligii shaqeeyo iska dhiga sidaan loo ogaan qofka danaystaha waxa lagu gartaa dadka ma jecla wax walba ana isla saxan aniga ayaan buu leeyahay mi ana marka qofka danaysiga sifadahaas lagu gartaa markastana wuxuu jecel yahay inuu isagu saxan yahay hadal looma sheego gari ma gasho gari kama baxdo gar ma qaato gar ma gooyo waa qof keligiisu isku dul wareega dadkana uu ka baqa indhahana saasoo dhada u gilgila indhahana marka qofka danaysta waxaan qofka danaysti ma jecla saaxiibkiisa inuu dul irbada u galiyo qof markuu wax ku arkana danaysto uu baqa uu ooya uu gilgilma gabigiisba siiga ku kacda daba maxay tahay sababta lagu heesto oo muuqaaladeeda loo faafinayo gabadhan wariyaha ahaan jirtay waxaa lagu heestaa xilligii ee Safiya Tusma muuqaalada laga faafiyay ayay iyaduna muuqaalo soo duubi jirtay iyada oo ku difaacisay Safiya Tusma si toosan uga soo horjeeday ninka la sheegay inuu Safiya Tusma muuqaalada ka duubay ee Cabdi Cajuun haddaba waa kana muuqaal ka mid ah muuqaaladii ay soo duubaysay xilligii Safiya Tusma laga faafinayay muuqaalada anshaxmada ah daba socotaa dumarka ragga markuu ka tago نيرا أبوهودي هودود بدلهم بي إسراعيني هبلود حمار يطلع حمار يجي لكن هدو كارك إنه كنت شحيل فربضن يدل إنه فربضن فاسو كوكو طلاب سنة سيدا وحو كومر يا شرنشرة الكرمات مقف شرنشرة كرايو مرة شرنشرة كاردي قاني لكن هدو بتحدي حدتي أتادد حمار راح وحمار يجي وخرى لصعوني لكن هدو أتادد waxay ila tahay inaad muuqaaladaas iyo barnaamijkan oo dhammaystiran inaad si deganaan aad u soo daawatay haddaba waxay ila tahay inaad si jawi degan aad u fahantay dadka doonaya iyo sababta loo doonayo in muuqaalada qawnida laga faafiyo gabadhan wariyaha ahaan jirtay inkastoo marka horeba ay qalad tahay in dad ayaguba galmoonaya inay muuqaalo iska duubaan waxaana dhammaan ummadda Soomaaliyeed kaga digaynaa in ay iska joojiyaan arrinkaas aadka u foosho xun waxaase qalad ah laba qof oo sariir wada joogta inay kaamira dhexda u soo gasho haddaba anagu ma doonayno inaan gabadhaas Soomaaliyeed muuqaaladeeda baraha bulshada keeno balse arrintan dadka ka dambeeyay ayaan barnaamijkan ku soo bandhigaynay sida ay wax u jiraan fadlan muuqaalka laag noo saar sidoo kale dad ku cusubta channelkeena waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto gambaleelkana furato si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada aan halkan soo galino wixii arrintan ka soo kordhana dib ayaan idin kala socodsiin doonaa intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga sida iyo nabadgelyo